haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay taliyaha booliska xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay gabi ahaanba faraha ka baxeen amnigii dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho isla markaasina taliye xijaar oo qaraabo laha madaxweyne Farmaajo isla markaasina halkan lagu keenay garab ayaa iminka waxa uu gacanta ka taagay amnigii dalka inay gabi ahaanba faraha ka baxay isla markaasina xilliga ka dhiman doorashooyinka kala wareega ay tahay inay wax walba dhici karaan si kastaba ahaatee xijaar hadalkiisa ayaa dad aad u fara badan oo siyaasiyiin ah la yaabay isla markaasina la yiri horay ayaaba faraha ugu baxay ma iminka ay ugu baxay maxaad u qarin jirtaa si kasta ahaatee dad ayaa waxay dhahayeen xataa hadii uu meydad aad u fara badan dhacaan sidii hore u dhacdaba ex control afgooy waa u qarin jiray master qariye ayaa iminka yiri madax dalka amni kuma jiro taliyaha ciidanka booliska dalka Soomaaliya General Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in amniga dalka lagu soo duulay uu gaaray meel xun isla markaana ay jiraan dad diidan dadka amnigiisa iyo horumarkiisa taas oo ula jeedo ururka al-shabaab isla markaasina laakiinse oo cadaysan karin inay al-shabaab meel kasta amni darro ay ka geysatay dalka Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho isla markaasina uu ula jeedo dad kale siyaasiyiin ah waxa uu sheegay in amniga qof walba uu mas'uul ka yahay hase yeeshee ay u muuqato in xuduudaha dalka ay iska furan yihiin sidoo kale injineerada ka qayb qaadanaya dalka dhismaha la qarxinayo taas oo xaqiiq ah maadaama injineerada inta u dhaxaysa afgooye iyo magaalada Muqdisho dhisaya ayaa inta badan aad loo qarxiya isla markaasina tii ugu dambeysay afgooye ex control afgooye ayay ku dhinteen sidoo kalena qarax ka dambeeyay ayaa sidoo kale ay ku dhaawacmeen halkii balan oo u qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in halkaas ciidamo ugu fara badan ee caasimada la geey doona si halkaas dhismaha u sii socdo laakiinse Mr Xijaar oo taliyaha booliska qaranka ayaa sheegay in halkaas amnigii uu faraha ka sii baxay isla markaasina la ilaalin la yahay injineeradii wadada kaliya noo dhisayay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayuu ugu baaqay inay hubiyaan dadka soo galaya dalka ciidanka booliska Soomaaliya ay dhankooda sugi doonaan amniga gudaha dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya degan tahay hadalka taliye xijaar ayaa cadeyn u noqonaya in amniga dalka uu marayo meel aad u xun isla markaasina madaxda dalka ugu sarreysa aysan qarin karin heerka amni darro ee dalka ka jira isla markaasina asigoo hadlaya waxa uu yiri dalkeena amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda laga soo galaba dawladaha lagu yimaado dalkeena amnigiis waa lagu soo duulay amnigiis dalkeena meel xun buu marayaa inaanu marka labada hay'adood wada shaqeeyaan taliyaha booliska Soomaaliyeed Mr Xijaar ayaa sidaas oo kale sheegay in dalka amnigiisa uu faraha ka sii baxay sidaad cod ku maqasheen isla markaasina iminka xilli madaxweyne Farmaajo uu maanta kula kulmayay Addis Ababa madaxda ugu sarreysa ee midowga Yurub iyo Canada iyo Norway isla markaasina arrimaha ee u qabsoomay dawladdiisa oo amniga ay ka mid tahay ugu faanaya si kastaba ha ahaatee taliyihii ugu sarreeyay haddii uu amniga gacanta ka taagay waxaa halkaasi macquul ah in uu xilkiisa u naxayo isla markaasina horeyba been u sheegi jiray sidii beentii ugu weyneed oo ahayd markii ex control afgooye ee dadka badan ay ku dhinteen dhahay ninka lagu magacaabo Cumar Filis gudoomiyaha gobolka Banaadir qari dhahay isla markaasina iminka waa uu iscelin waayay oo amnigii waxa uu yiri faraha ayuu ka baxay dhinaca kale laba nin ka mid ah ama saddexdii kufsaday gabadhii yareed ee Caaisha ee koonfurta gaalkacyo lagu kufsaday ayaa maanta laba ka mid la toogtay isla markaasina mid ka mid laga reebay raggii dilay u geystay Caaisha Ilyas oo saaka la toogtay waxaa saaka fagaara ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lagu toogtay laba nin oo ka mid ahaa raggii kufsiga iyo dilka magaalada gaalkacyo ugu geystay Caaisha Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 jir ah Allah u naxariistay isla markaasina malaayiinta Soomaaliyeed ee ka dhiidiyeen meel kastana laga hadlay lagana argagaxay maxkamadaha kala duwan ee maamulka Puntland ayaa xukun dil ah ku riday 3 nin oo lagu helay in iyagu ay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii gabadha yar lagu geystay waqooyiga magaalada Gaalkacyo si kastaba ha ahaatee nin ka mid ayaa halkaas laga reebay isla markaasina lama cadda sababta loogu reebay fagaaraha ku yaala magaalada Boosaaso ayaa saaka lagu toogtay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige waxaana dib loo dhigay xukun dil ah oo isna lagu fulin lahaa Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame taasi aan la ogeyn sababta dib loo dhigay shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay xukunka cadaaladda ah ee lagu riday raggii dilka iyo kufsigii u geystay gabadhii yareed ee isla markaasina Caaisha ahayd
halkaasina si arxandar ah u kufsaday una dilay waxaana falkan gabadhan lagula kacay si weyn uga carooday ummadda Soomaaliyeed isla markaasina meel kasta laga soo wada hadlay laguna yiri maamulka Puntland waa inaad cadaalad siisaan reerkaasi isla markaasina aad u jaa'ifaysaan adigana kufsigii ay sameeyeen waa inaad ka abaalgudaan si kastaba ha ahaatee warar kale oo iminka soo dhacayaan arkaya aabihii Caaisha dhalay ayaa ka hadlay wiilka laga reebay sababtana soo sheegay isla markaasina wararkayna xiga ayaa dib kaga daawan doontaan haddii rabbi qadaro dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo Addis Ababa kula kulmay madaxda golaha midowga Yurub isla markaasina ugu faanay waxyaabihii dawladda Soomaaliya u qabsoomay sidoo kalena sheegay in amniga si weyn loo adkeeyay xilli saakay magaalada Muqdisho ninka qaraabadii la ahaa ee gudoomiyaha taliye xijaar uu sheegay in amnigii faraha ka baxay madaxweynaha Soomaaliya Addis Ababa madaxda adduunka uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay amniga si weyn u sugtay gaar ahaan magaalada Muqdisho amniga gacanta ku hayso madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kulan gaar ah kula qaatay madaxweynaha golaha midowga Yurub mudane Charles isla markaasina waxyaabihii uu qabsoomay 3 sano madaxweyne Farmaajo halkaas ugu warbixiyay kulankan ayaa waxa intiisa badan looga hadlayay horumarka Soomaaliya ka sameysay dib u habeyntii hay'adaha amniga horumarinta dhaqaalaha xaaladihii ugu dambeeyay ee geeska Afrika iyo taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay in dawladdiisa ay si weyn gacanta ugu dhigtay amniga iyo dhaqaalihii iyo horumarinta dhan walba ah isla markaasina midowga Yurub ay ka aqbaleen madaxweyne Farmaajo waxyaabaha uu sheegayo maadaama uu arintaasi iminka magaalada Muqdisho ee ka soo baxday in taliyihii ugu sareeyay hay'adda booliska uu yiraahdo farihii ayuu ka baxay amniga xilli madaxweyne Farmaajo Addis Ababa leeyahay amniga gacanta ayaan ku dhignay horumarka meel kasta ayaa joogo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa golaha midowga Yurub uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay siinayaan dawladda federaalka Soomaaliya taas oo muhiim u ah dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya isla markaasina ay iminka sii doonayaan in taageerada intaas ay kasii badiyaan Mr Charles ayaa dhankiisa dawladda Soomaaliya ku ammaanay horumarka ay ka sameysay horumarinta dhaqaalaha iyo dib u habeyntii hay'adaha dawliga ah ee iminka shaqeeya madaxweynaha Soomaaliya ayaa Addis Ababa uga qayb galay meertada ama shirka 33 ee shirka midowga Afrika ayaa kulan duceedyada magaaladaasi kula yeeshay mas'uuliyiin kala duwan oo shirkaasi ka qayb galay sida ra'iisul wasaaraha Canada iyo Norway iyo midowga Yurub isla markaasina u warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay 3 sano ee la soo dhaafay isla markaasina sheegay in hay'adihii dawliga ah ay dhammaan bay soo celiyeen amnigana gacanta ay ku hayaan si kastaba ha ahaatee midowga Yurub ayaa malaayiin dollar ku bixisay amniga magaalada Muqdisho isla markaasina taasi oo cadeyn u ah in taliyihii ugu sareeyay oo saaka leeyahay amnigii faraha ayuu ka baxay dhinaca kale wasiirkii maalmahan la isku haystay kana baxsaday dawladda federaalka Soomaaliya madaxiisana ciidamada ugu badnay abid ay joogaan beled xaawo isla markaasina Kenya ayaga ay isku xabadaha isku ridi rabaan ayaa u jawaabay maamulka Mandheera oo yiri waa inuu naga baxa Cabdirashiid Janan oo ka jawaabay dalabkii reer Mandheera ee ahaa inuu ka baxo magaaladooda wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa sheegay in uusan ku sugnayn magaalada Mandheera ee dalka Kenya balse uu joogo magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo gaar ahaan Soomaaliya Janan oo warramay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in isaga iyo ciidamada uu hogaaminayo oo ay dhinaca ka joogaan magaalada Beled Xaawo oo ay ku sugan yihiin ciidamadii dawladda federaalka ay dhawaan geysay degmooyinka gobolka Gedo Cabdirashiid Janan ayaa sidoo kale sheegay in aysan wax dhibaato ah ku jirin inuu tago dalka Kenya markii uu doonana uu tagi doono xataa magaalada caasimadda ah ee dalkaasi Kenya Nairobi Janan ayaa carabka ku adkaystay in uusan hadda joogin meel ka tirsan Kenya uu ku sugan yahay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Beled Xaawo sida kalena waxa uu sheegay in uusan doonin in dawladda dariska ah ee Soomaaliya iyo Kenya ay madaxiisa iskula dhacaan khilaafkana uu ka dhax abuurmo isla markaasina ay tahay in la ogaado meesha aniga aan joogo iminka ma joogo Mandheera ayuu yiri laakiinse taasi aniga haddii aan doono waxaan tagi karaa magaalada Nairobi ugu dambeyntii wasiir Janan waxa uu sheegay in haatan ay isku meel ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo saraakiil dhowr ah oo reer Jubbaland ah hadafkooduna uu yahay inay soo celiyaan ama soo ceshtaan gacan ku haynta degmooyinka iyo deegaanada gobolka Gedo ee dawladda kala wareegtay isla markaasina ay doonayaan inay dagaal kula soo wareegaan hadalkan wasiir Janan ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta xildhibaanada dawladda dhexe ee Kenya ay ku matala
mas-uuliyiinta kale ee kasoo jeeda gobolka Mandheera ay ugu baaqeen madaxda dowladda Kenya in ay hubka ka dhigaan ama dalka laga saaro Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa isla markaasina marnaba lugta soo saari doonin Mandheera ee dalka Kenya maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya ay macquul tahay inay arrintaasi ka xumaato ayna dowladda Kenya magangeliyeenayso nin hubaysan isla markaasina adduunyada laga raadinayo ama dalkii laha uu raadinayo aysan magangeliyasiinin si kastaba haatee xaaladdu waa la isku birtumanaya waxa imika noo soo socdo Axmed Madoobe iyo ciidamadiisa hubka urursaday isla markaasina sheegay ciidamadii xamar laga daldalay ee Khayra iyo Farmaajo ka daldaleen Kenya ay geeyeen inay dib ugu soo celin doonaan dagaal dartiis